waxaa maanta ka dhacay gudaha Balugubadle shil sababay hal qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac sababta keentay ayaa sida ay noo sheegeen goob joogayaashii ku sugnaa goobtaasi in mid kamid ah ciidanka ku sugnaa halkaasi oo ay xabadi ka dhaceen qorigiisa kadib markii uu baas jiiray shicibkaasi hayeeshee lama cadeyn karo in uu kas u riday iyo in ay ka qaraxday rasaastaasi goobtaasi oo ahayd iskuulka sare Balugubadle laguna qaybinayay timir oo loo qaybinayay dadka abaaruhu saameeyeen hayeeshee aanu wax buuqi ka dhicin qaybinta timirtaasi xogayaa dawladda hoose degmada Balugubadle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar oo ku sugnaa goobtaasi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida uu shilkani ku dhacay oo isaga ahaana ay sigtay xabadu baaskaas labada dhagood baa aniga way qarxeen waaban yaabay meel allaalan oo baasho intay kor u dhacday noocan umay qaylo badateen waa sidee macno dad laba askari qori sitay oo gudaha ku jiray iyo hal oday oo halkaas oo kale xagga hawdiga xigee gudaabada ku jiray ayaa markaas sidaas oo kale u dhacay magaranaysa halkii askari saas uu yar luuday ninkaasuna uu dhacay saasaan markaa dib u soo eegay waxaan arkay ninkan muxuu la kiciyay baan iyo way ku dhacdayda qaylada magaranaysa ayuunba aniga laftaydu cagtaa bidix hoosteedu yar hafeefat markaasaan ogaaday inay xabadu hoos u dhacday qaabkii ay u dhacday markaa kama warbixin karno inuu askarigu dhacay si uu ahaa in la garbiyey in de markaa baarigeena soo wada saareen taasna baadhisteeda taliyayaasha taliyaha asluubta iyo taliyaha qaybtu ciidanka imanka labadii asluubta iyo booliska meesha ku sugnaa ee nala shaqeynayay baadhistooda way ku jiraan baadhistooda ka hor dhici mayno si uu qorigu askariga uga qarxay iyo si uu noqday iyagay u taala oo baadhistooda leh askariga si ay wax uga dhaceen anigu maan arkayn ishana kumaan hayn ayuunbuu baaskaas saa noo jiiray 6 nin waa dhaawac weliba meelo xunxun ay kaga taalla qaarkood hal ninna uu dhintay sida imika lee xaqiijiyay dhakhtarkan uu maan geline insha allahu tacaala ilaahay ninkaa dhintay ha u naxariisto qaraabadiisii samiriya imaan baan leeyay 6 nin ee serious ka ahmaay meelaha khatarta qaarkood kaga taallana waxaan ilaahay uga baryaa inuu caafimaad siiyo ayuunbaa ma garanaysaa aniga laftigaygu dee waan sigto surwaalkayga waa taa madanaysay ee waxaan ku yidhi jidhkayga hoosena sii sartay ee madanaysay dee aniga laftaydu waan sigto dadweynahaas baan ka mid ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Hawd gaashaanle dhexe Axmed Cabdilaahi Cabdi oo aanu isniidhi wax ka weydiiya ayaa noo suura gelin inaanu wax ka weydiino kadib markii uu ku jiray baaritaan ciidan Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hon Cable TV degmada